Ku soo dhawaada liiska 10 madaxweyne ee dunida ugu taajirsan. Kaalinta koobaad, Vladimir Putin waa madaxweynaha Ruushka laga soo bilaabo 7 May 2012. Waxa uu dhashay 7 Oktoobar 1952. Lacagtiisana waxay gaaraysaa $40 bilyan. Wuxuuna ku jiraa kaalinta koobaad liiska madaxweynayaasha ugu taajirsan caalamka. Waxaana sanad walba soo gasha lacag dhan $187,000. Kaalinta labaad, Mahathiralongkorn magaca shaashada ka muuqdo waa boqorka Thailand. Lacagtiisa waxaa lagu qiyaasaa $30 bilyan. Mareykanka ah. Kaalinta saddexaad, Xasan Bolkiah Sultaanka Brunei. Lacagtiisa waxaa lagu qiyaasaa $20 bilyan. Waana madaxweynaha saddexaad ee ugu taajirsan caalamka. Kaalinta afraad, Khalifa bin Zayed Nahyan waa madaxweynaha isku tagga Imaaraadka Carabta. Lacagtiisana waxaa lagu qiyaasaa $15 bilyan. Mareykanka ah. Kaalinta shanaad, Mohammed bin Rashid Al Maktoum madaxweyne ku-xigeenka iyo ra'iisul wasaaraha isku tagga Imaaraadka Carabta. Waxaana lacagtiisu ay gaaraysaa $4 bilyan. Mareykanka ah. Kaalinta lixaad ee liiska madaxweynayaasha dunida ugu taajirsan waxaa ku jira Donald Trump waa madaxweynaha Mareykanka laga soo bilaabo 7 January 2017. Lacagtiisana waxay gaaraysaa $3.5 bilyan. Wuxuuna ahaa ganacsade caan ah. Kaalinta toddobaad, Hannes Adams wiilka boqorka ee Liechtenstein. Lacagtiisa waxaa lagu qiyaasaa $3.5 bilyan. Kaalinta sideedaad, Mohamed Rai boqorka Morocco waa ganacsadayaasha ugu weyn Morocco. Wuxuuna si fudud ku soo galay 10 madaxweyne ee ugu taajirsan caalamka. Lacagtiisana waxaa lagu qiyaasaa $2.5 bilyan. Sebastian Pinera madaxweynihii hore ee Chile. Waxa uu ahaa madaxweynaha Chile laga soo bilaabo 2010 ilaa 2004. Lacagtiisana waxaa lagu qiyaasaa $2.7 bilyan. Kaalinta ugu dambaysa liiska ee 10aad, Salmaan bin Cabdulaziz boqorka Sacuudi Carabiya. Kadib dhimashadii walaalkiis, waxa uu noqday boqorka Sacuudi Carabiya da'da 80 isagoo jiro. Badanaa lacagtiisa waxa uu ka helay shidaalka. Lacagta uu haystana waxaa lagu qiyaasaa $1.32 bilyan. Waana madaxweynaha 10aad ee ugu taajirsan dunida. Inta aan dib ugu kulmi doono muuqaaladeena xiga, waxaan idinkaga tegaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.